mushkiladii saylac ma xallilantay halkaysa marasa su'aashaydu waa intaa aad baad xildhibaan u mahadsantahay waa su'aal runtii meesha ku jirta waana xaaladaha taagan xaalad ka mid ah runtii waa runtaa xilka wasaaraddu waa xil ballaaran ilaahay insha Allah waxa igu ducaysaan in ilaahay uu asturo kulli insaanku maalin buu ka tagayaa in ilaahay maalintan ka tagayo uu ka dhigo maalin aan meel wanaagsan kaga tago adduunyada waxa insaanku qabto oo dhanna gudaloolo laga waayo waa xaqiiq weey wixii insaan qabanayo oo dhan baa ayaa gudalooladeeda leh waana yeelanaysaa hawl kasta ana qabiyadeeda iyo gudalooladeeda yeelanaysaa selal waa gobol baalaha galbeed ee Soomaaliland dhammaan gobolada aynu ka soo jeednana ka tagi mayno inaynu beela-beelanahay halka waa beelaha galbeed baa degan gobolka dadkii doorashada ku tartamay laba beelood baa xildhibaano uga soo baxeen xildhibaanada ka soo baxay 17kii xildhibaan waxa ku qanci weyday beel kamida beelihii halka deganaa waxay keentay xaalad culays weyn leh inay keento natiijadu ma yahayn wax anaga na khusaysay oo waxa ku dhawaaqay commission go'aan xukuumaddu wax ka bedeli karaysayna muu ahayn waqtigii la diray aniga ama wasiiradii iga daba yimi laba hawlood baanu halkaa u tagnay mid waxay ahayd nabadgelyada sugideeda talabaadna waxay ahayd socodsiinta maamulka dawliga ee si nabadgelyo loo socodsiiyo marka nabadii dalbeesha wax tabatay inaanu la hadallo oo la fadhiisano oo qancino oo bal aanu ka qancino doorashadu inay tahay wax aan xukuumaddu go'aanba aanay ka gaari karin wax aan xukuumaddu aanay go'aankeeda lahayn laakiin go'aankeedii dhacay sabal xukuumadda iyo madaxweynaheedu waxay goosteen in beesha wixii kale ee walaalnimo ee lagu soo jiidayo in la siiyo oo la qanciyo si aanay u dhicin kala fogaansho marmar baad eegaysaa in wada jirkeena iyo walaalnimadeenu sharciga waa sharci oo kaliya hadaynu nidhaahno aynu ku kala tagi karno marka bal in dabac lagu daro sharcigii oo madaxweynuhu markaa beeshii halkan ergaa u timi waxbay ku wada hadleen annaguna goobtii baanu tagnay waanu wada hadalay muddo badan bay nagu qaadatay hawshaasi labadii mas'ale uu tagnay waa noo fulay waa nabad saylac maanta alxamdulillah waa nala garatay beeshii inay nabad ku wado oo tabashadeeda ay nabad ku socoto way nala gartay qodobkii labaad maamulkii meesha ka jirayna waa shaqeeyaa oo isna si nabaduba u shaqeeyaa laakiin qodobkii tabashada ee beeshaasi wali waa taagan yahay waxay leeyihiin waxaanu doonaynaa inaanu ka wada hadallo oo aanu sii wadno kuma qanacsanin degmada saylac oo aad degmadii ugu dambaysay iyo deegaankii u dambeeyaynu gacanta ku haynay ina doorasho tidaahan maayarkii baa lagaga hela ma ogolin waa caddeeyeen taa ma ogolin bay dhahan warbaahintana waa ka caddeeyeen xildhibaanadii miyaan ciidi ka joogin raggii aan wada shaqaynaynay xildhibaano badan baanu goobta ka wada shaqaynaynay qodobkaa beeshaasi kumay qancin guurtee qodobkaa kumay qancin waxaa kale oo muuqatay danaynta beesha ciise ay hadda Soomaaliland danaynayso inay ka weyn tahay sidii hore marka qodobkaasina qodob go'aankiisu annaga noo yaalay muu ahayn marka waxaanu goosanay beesha wixii saamiya ee xukuumad gacanteeda ku jira in loo buriyo beesha loo buriyo wixii gacanta xukuumadeedba ku jira si walaalnimada iyo xiriirka aanu noo go'in marka nabadna waa nala qaateen maamulkiina waa dhisay hadda waxa noo socdo aanu bilownay in beesha waxyaabihii madaxweynuhu ugu ballan qaaday iyo wixii loogu dari lahaa la socodsiiyo oo waa maxay in ciidamadii loo qarameeyo in maamulkii wax laga siiyo in la soo jiido marka nabadii waa wadnaa qanacii iyo gogashiisiina waxaanu ku nidhi
odayaal naga waaya aragsan oo taariikhda dib u eega oo dhaqan yaqaan ayaa idinla kulmi doona waxana loo soo diray xeer beeytida ugu sareysay ee ciise leeyahay ayaa naloo soo diray 7 kamid ah baanu la kulanay waxay yiraahdeen waxaanu nahay 6 aqal ee beesha ciise iyo curadkii 7da waa dhanay bay yiraahdeen dabadayna cid wax weydiin meysaan ergada naga qaado oo gaarsiiya reer Soomaaliland ma aqbalayno natiijada halka ka soo dhalatay ma aqbalayno waa go'aan ma aqbalayno dabadeedna waxaan ku niri inta ay isla ogolay ay isla aqbalo maxay isla aqbalaynaa inay dunidu nabad ahaato in maamulku ay loo shaqeeyo ilaa dawlad ahaan meeyne maamulka inaanaydan isur taagin oo maamulku inoo shaqeeyo wixii markaa tabashana inay iska socdaan oo la dhageysto iska socdaan markaa tabashadaasi waa taagan waxaana insha Allah la magacaabi doonaa la diri doonaa xeer beeytiga genda la yiraahdo filaya golaha ugu sareeya ee beesha ciise waana niman dhaqan loo dhaqankoodu adag yahay hal dhibaatana waa jirtay gendigu Soomaaliland ma fadhiyo Itoobiya fadhiya marka nimankaana inay balseyla yimaadaan oo halka loogu garnaqsado guurti ay kula kulanto iyo rag dhaqan yaqaan oo xaaji cabdi insha Allah ay hogaamin doonaan marka inta hadhay waa intii anagu inta yaga waa soo qaban insha Allah